حسد كنا وصفة قابيل ولالك هابيل وكدلي واتل عليهم نبأ ابني آدم إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال إنما يتقبل الله من المتقين ولا ليها يعني آدم بعد لبدو ذبا لكن برجع ما دام بن آدم وترمى حواء مركع على الشيء الماء وقلبا لبا دليس لما متاني دليس ويليا قبر الإسلام الشيء لبدا كوحكتو يكون ويليا قبر أي إسويدار لسوق جورين يبالغ اللي بن آدم كترمى مركز قابيل وحالة لا تي قبر قرح بنايد هابيل لو حالة لا تي قبر فول حميد بالغ markay afartoodii barbaareen ee weynaadeen ee kobceen ayuu aadam ku yiri waa hagaaga haabiilow mataanta qaabil guurso waa sida curfiga ugu ahaa shariicadoodu marka ay ahayd qaabiilow adiguna mataanta haabil guurso marka qaabil baa yiri may aniga ta ila dhalata qurux badano ta isaga la dhalata way fool xun tahay marka taydan guursan buu yiri yani wixii fiicanba ana igu fiican yihiin weeyaan marka aadam baa ku yiri may sharcigeena kala nooma ogolo may halka sheekada oo mareysay mufassiriinta qaar kood ay qoreen aadam alayhi salaam wuxuu tagay makku tagay dadna qaabil iyo haabil baa isku haday labadoodii baa marka waxa isku bandhigeen ay yiraahdeen hadaba waa yahay sadaqad hal la baxno keena sadaqada laga aqbalo ha guursada gabadha quruxda badan leh ilaa qaabil تي هابيل لا دلتي فول حميد اسك ديday inuu guursado wuxuu leeyahay anu tan mataanta ila dhalatay quruxda badan leh haabiil u dhismay ana guursan buu leeyahay labadoodii marka waxa loo bandhigo la yiri sadaqad la baxa nina wuxuu ahaa beero qodaal beeruhu falan jiray oo qaabiil wuxuu ahaa nin falaaxo bidirka iyo zarca dhulka ayuu beeran jiray haabiilna wuxuu ahaa baa la yiri xoolo dhaqato kana beertiisa wixii ka soo gacay buu halka ku ururiyay kana xoolihiisa neefka ugu qurux badnaa shishla ayuu xagga soo dhigay baa leeyahay marka sadaqadaas in la aqbalana waxa lagu garanayay samada waxa ka imanaysa naartaas marka sadaqada la aqbalay bay ku dagayso way gubaysi way baabiinaysi marka haabiil sadaqadii uu la baxay ayay ku soo dagtay baabiisay baa waa neefkii tii qaabil meesha uu ku ururiyay shaciirkii iyo wixii dalcunay zarca ahaa naartii waa ku soo dhici weeyay marka qaabil baa si xanaaqo yiri haabiil oo si aad lagaaga aqbala oo in la iga aqbali waaya marka haabiil baa ku yiri walaalkii da ilaahay dadka Allah ka cabsiga loo sadaqada ka aqbala buu deewaan ku dili da aday ku taallaa buu laakiin anigu haddaad adigu gacanta ii soo fidisid anu ka gacantayda ku qaaday ma yihibu kay deewaa ka dilay marka quraanka ilaahay ku sheegay faqatalahu fa asbaha min an-nadimin وحلي وحبني آذن حق در لو قدلو ودن إلى قيامها إن آذن كهور ديك دادي ديك وجوهر حق در إنك قد دادي قابل بها دم بيسبون كله واحد بني آذن حق در ديك لو قدلو دم بيجانا محوك هذا شيء أو محوك هذا شيء حسد كنا ما أقول شريعة الإسلام حسد هو معي هدي الله معنا يا واحد كده قلتاي إله النعمة هبل آتسيسي ومقل ما حوسيسي ما إلهي بعد مركا كأركت في عنته دنبق حسد كالقولة يا حسد كمركا دموحو جايي إنه قابيل ولالكي وكل قرون لذلك ذاتك ضايع مشتركة صفات حسد كوين كفو قدام كشلي سوق الصوق قليب الله جاي بينه كل دافع عنك هاي سورة صدوق يدافع عنك إلهي ما أقرأ ده سجى يا أقرأ إلهي لأن الرزق هو منقسم والله غيبي الدنيا ده الله قمت ترتمي الدين ده الله ترتمى خصلتان من كانت فيه كتبه الله شاكرا صابرا ومن لم تكون فيه لم يكتبه الله شاكرا ولا صابرا لما خصلتون قفك نولشيس أي كمت هاي كجرتو إلهي ليسك الشاكرين الصابرين أيو قدرا من نظر إلى دينه
من هو فوقه فاقتدى به ومن نظر إلى دنياه إلى من هو أدنى منه نيكا مركي دين نقطة ككسر يا إيغا يكون ضيدا الدنيا مركي نقطنا إيغا ككهوسيا النعمة إلهي سقوسي هوسو إيغا كو شكريا لبدا خصلة نيكا لبا ليدي إلهي جل وعلا وحو قدر شاكرين تي صابرين marka in adduunyo la iskaga daydo oo walaalka adduunyo lagu la tartamo oo adduunyada lagu xasdo lama ogolo waxa la ogol yahay in qofka diinta lagu la tartamo ka diin fiican baa la eega deedna waa lagu daydaa yaalii waa lagu daydaa salaada shada waqti waad u tukanaysaa waad baxaysaa laakiin ninka sunnaha ku daraya eego bisha ramadaan baad adigu soomaysaa sunno kale ma sootid ninka shawaalka ku daraya eego ku dayo acmaal baa loo baahan yahay lagu tartamee ashyaa in lagu tartamo maaha mid walba arsaaqada ilaahay intuu qoray buu helaya in kaloo ziyaada ma helayo kasbiga arsaaqada iskuma xidhno dad baa kaa shaqo badan adiga laakiin kaa dakhli yar nin baa adiga kaa shaqo yar laakiin kaa dakhli badan kuuligu subaxda 6da subaxnimo shaqadu bilaabo ayuu 6da maqribka ka soo dhaadhacaa isagoo naftiisu ay nafba ku jirinba waxa uu qaadanayaa wax yar oo la yiraahdo $15 ama $10 laakiin injineeradu ka warrama maxay shaqeeyaan injineerku inuu shaqeeyo saacad 2 saacadood waliba xafiis qabow ku shaqeyn xafiis qabow oo biyihii u yaaleen oo halkan shaahi u yaalo oo ku sheekaynayo 2-3 saac u shaqeyn waxa laga yaabaa $100,000 inuu qaato maaha qalinka wuxuu ku helay arsaaqada may u qornay imisa ka aqoon badan oo xaafadaha fadhido walwalan dadka inta shaqeynaysa kala haysa iyo inta qalada fadhida cunaysa ma badan ya bal dumarku may shaqeeyaan may hadana way cunaan oo naga qurux badan yihiin ubadku may shaqeeyaan may hadana way cunaan oo naga qurux badan yihiin waayeeladu may shaqeeyaan may hadana way cunaan oo way cabaan dadka walwalan may shaqeeyaan may hadana way cunaan way cabaan dadka jeelasha ku xidhan may shaqeeyaan may hadana way cunaan way cabaan dadka inta shaqeynaysa 10% maaha 9 kalena way cuntaan marka walaalkaaga muslimka hadii ilaahay uu ka dhigay mid adiga kaaga horeeya xagga adduunyada war adduunyada qofka lagu lama tartamo waxa lagu la tartamo qofka aakhirada lagu la tartamo في أحد غزوات النبي وبحجر صلى الله عليه وسلم غزوة كمدة أي النبي الصحابة كل رجال يجري سفرك ونقول دري هاي سهيدنا ويكومنت هاي نين ولو بالمانت وحد الله بحكرت الله بح عمر بن الخطاب مالين تامركم مغلي وحي كسر دعدي بودي مالين أنا أبو بكر كجبرونه markaasaan is iri wallahi in badan baad Abu Bakar isku dayday inaad khayrka uga badiside ka badi kari weyde maanta aad fursad heshay waad ka badinaysaa maanta oo fursadda Umar uu haysto waa maxay Abu Bakarna waa faqiir waa markii Madiina loo soo hijroodo dhaqaalaba ma haysto Abu Bakar Umarna waa nin maal qabeen oo ganacsi buu leeyahay markaasa nabigu sallallahu alayhi wasallam saxaabadiisa nin walba wuxuu bixiyay weydiinaya walibana maanta aad maxaad bixisay ya rasuulallah inta soo neef baan keenay anigu ma sha Allah ka qaada waradna maxaad keentay ana inta soo ariyaan keenay ka qaada waradigu maxaad keentay inta soo nin baan aniguna saydooda keenaya ka qaada Umar oo socda markaa yimid ragii ka horeeyay Umar wuxuu nabigu weydiinayay waxay la baxeen buu weydiiyay لكن عمر بن الخطاب نبي سؤال عجيب ويدي وحكو يري يا عمر ريركاغا maxaad uga timid baliishak buu yiri ماذا ابقيت لاهلك صحابه intii kala dhan waxa la weydiiyay waxay keeneen in la baxayaan laakiin Umar wuxuu nabigu weydiiyay
حد ما أنت عمر وأدو نسيد حد يركع قوتي من دبلي شيء مركز يقولي أنت الآن وضع إلا أقوم بنوعي بدبودي مثال هان كسوقات لين بقول كون هايستا أو كنتم كن كاني كنت كنا ريركي وجي مدي زمن كوداس مصاريف الريرة واحد يكون بحيان بالليلي ويش ما شيء جرين لأن عمر هدو شيء لها كنتم كن ريرة وجي مدي نقصان بعمر هلك كجم وقال له إنه شيء سوايو وحلو وقال لها ما ماشى أصحاب رسول الله هنا نجح علوش وقول حرنا إياه أهل السفينة حبت تمر هيكون عنتين إياه أيو عمر حولين ذلك غير كيس كودا حيستا هل كان نقصان بقى سوقي له عمر دين تيس لذلك عمر مشي يقول أنت نان وضو إلا ماذا بانو جاي مديبو للغير كيجي مثال عندنا بقولكم بيعيد كنت كنا كان كنت أنا الله علي أبو بكرنا وحى وكان يا ما بجرتبه وفقير عمر يسقو وحى فيلا إلا إذا هذا محات كنتي ولا هذا كنت أكون بكاني أبو بكر وهذا وانا محات كنتي وحما هيست النبي الله وما أنت دع عمر إلى أبو بكر هذاك بديه ما أنت وهذا فهمتين ما نملين لكن سؤال النبي هو حيود على السدن ماذا أبقيت لأهلك يا عمر يا عمر يراها محات وقتي مدي أنت نان وضع إن لأقبان وقاي مدي بيقولي أنت مركان لما ويدي شكل لما ورن أنت ما أنا شاكي كرو أنت الرير كان لو ويدي أنت إنما شاكي وحش هذا يا رسول أنت نان كان إن لأقبان وقاي مدي أبو بكر والسعودة يمدو يدي يا رسول الله أبو بكر أنا رير كان محات وقتي مدي الشاك وعلي إلهي رسول كسان وقاي مدي بيقولي بلا مصاريف بلا وحبة مركان النبي يقول يا عمر وقصله وحكوا يا عمر لبدي الناس صدقة أنت لبدي الناس هذا اللي أنت قلت حيسا أيا درجة دينا جنة قلت حيسا ورسولك كويلي ومالك عمر يري هديت لما أنت كذب بيز أبي بكر دم الله ترتمى يا ويهرب هذا فهمتين ما نقول تنافس وصارعوا وسابقوا فليتنافس المتنافسون بإلهين صارعوا الدنيا مركز اللي نقلها الله يا إلهي وحول فامشوا في مناكبها أصعد الدنيا أصعد صعد كواسطا صعد واتغنى ذكرك إلهينا فاسعوا إلى ذكر الله سعي قبال ليري وصعد كسر رأي وأودك دقا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون تنافس كنا ومحي وترتم لما قفوا الشرط هلك الله دقي وترتميس سو كلا بديان جنة مركز لقى هلايو لما نينو الشرط الله دقي سيده وبر تمام بإلهي وصبر تمام بإلهي لكن إلهي حقي سمرك اللي يرينا وحال يري ففروا إلى الله فرارك ومحي نين بحرين يكورنا لبنان إنه شرط تميس وشرط هالك الله دقوا برتميس هي نين بحرين يمسك أورد با أركي أورد بدن إنك ودت كين الزمن كبال ليري ففروا إلى الدنيا دي بالله أرض يا مانت دين مركين نقطنا فمشوا وأوسعنا وأنتم كذا محل يقرب أبو كورن واحد صلاتك بدن بجرا الدنيا وسع لقايلي إلهي حقي سنة وحال لقايلي ففروا فرار كفرارك من الأسد سيد اللباح نفط هذا وقبت بعد الله نار جهنم وقبت بعد بالقلية الدنيا وقبت بعد فالدنيا أكلا بدين ما إنه آخرة أكلا بدين إنا عملك ونكسب أكلا بدين إنا إلهي ودواشي سنو كلا بدينينا جنة أنو كلا بدينينا فاستبقوا الخيرات خير كوسو كلا بديه بإلهي لي خير كوسو كلا بديه مركا الدنيا دا وين ترى الله ورنت إلهي قدري بنا نقول عن هستا ما دافين كرام ولا الكين أنت نو هست إلهي بقى قدري ونو هنيجي لا حسد إلا في اثنتين بالنبي يقولي حسد كدين تنو أقشعي ولا بس شيء كليا لا بس شيء بقف قرن كرا
alla ma anigana ilaahay sidaa iga dhigo laba un baa la kantaa buu nebigu yidhi waa labadee kamashadu laba un bay u bannaan tahay qof ilaahay dhaqaale uu siiyey oo dhaqaalihiisii meel fiican ku bixinaya markaad aragto iyo qof ilaahay qur'aan uu baray oo saacada habeenka ka mid quraanka isla taagay oo akhrinaya hadaad aragto labadaa un baa la odhan karaa allah ilaahow maad anigana sidaa iga dhigtid sidoodaas oo kale anigu aan khayrka ugu badin lahay labadaa un baa qofku walaalii ku kama karaa maalqabeen meel fiican ku bixinaya xoolihiisa مسجد كودسيا مدارس كودسيا مكاتب كفريا أيتام وحسينيا مساكين تكون نفقينيا علماء كو إكراميا خلقي إلهي بو أديقيا كاوالا تمني كرا تمني بالله ورنا ياي إله نعمة محاد أسيس كسوقات معها ما سديس إله يقدك تدويان هدادي أنا كان حول السين لحي سديس وكلا نقول لها oo khayrka ku bixin laha weeyaan iyo nin qaari oo quraan ilaahay uu baray oo saacadaha habeenkii kamid intuu ka ilaahay baryaya marka khayrkeena nu tartana diyaar ma unahay insha Allah dhahad وفي ذلك فليتنافس عبد الله بن مبارك رحمة الله عليه ayaa sankaraadkii markuu qabtay ay ardaydiisii iyo culimadii ay dushiisa ku soo urureen ayuu dhaha kala qaado sida uu eegay لمثل هذا فليعمل العاملون بيقول لمثل هذا ما أنت أوكله حالة أنا كجرا أوكله نوال بوي مري دون تايه وارجع يوسو عمل فلا يوم حلقة هاوس وشقيستب حلقة مرحلة ما أنت أنا أن مريو ما نم بدأ تقول مري دون تايه أرنت أنو شهي خيرك أوكله بدي خيرك أوكله بديع خيرك أوبرتنا خيرك عمرة خيرك بيرة خيرك كشقي خيرك إلهي نسينا ودين الإسلام دين قيمة كوية لسعدك جبريل عليه السلام قرآن كان له صودي بي سيد الملائكة إلهي كدقي نبي محمد قرآن كان لقود جيي سيد الأولين والآخرين با إلهي كدقي أمة نبي محمد با قرآن كان لقود صود جيي دو الشيدة أمة خير بدن با لقا دقي مكة قرآن كان لقود صود جيي بقعدها بيده خير بدن با لغا دغاي بل رمضان بو قران كو سو دغاي بشا بلا ugu خير بدن با لغا دغاي habeen leelatul qadar quraan kala soo naqliyay habeenkaas wuxuu noqday kun habeen kun bilood habeen ka khayr badan buu noqday habeenkaas diintaas ilaahayna siiyay sharafta ku yeelays ee khalqigi sharafta u wada yeeshay jibriil bay diintu sharaf u yeeshay oo lagu ammaano la yiri نزل به الروح وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين جبريل عليه السلام بقرانك أمين كوشك أمين روح الأمين وجبريل هو أمين كن نقضي ووحيك وكسو قادة بيت العز النبي إن محمد وأرلده كوكيني سيد الملائكة كن نقضي نبي إن قرانك اللي قصو دجي يسقع سيد الأولين والآخرين بو نقضي مكة قرانك قصو دجي بقعدها الدنيا ugu khayr badan bay noqotay Makka salaada Makka lagu tukado waa 100 kun oo salaadood 100 kun oo salaadood waa meeqa sano ma taqaana waa 5 sanadood iyo 6 bilood iyo 22 habeen hal salaado Makka lagu tukado yaa u dhiganta 5 sanadood iyo 6 bilood iyo 22 habeen 5 salaadood ninka ku tukada ka warrama waa 500 sanadood iyo ziyaado toban salaadood ninka ku tukada ka warrama toban salaadood 20 salaadood shantii salaadood waa 250 tobankii waa 500 labaatankii waa 1000 sano oo dheeraad qof jiray weeyaan Makka waxay qadarka iyo qiimaha ku yeelatay waa buqcadii Nabi Maxamed ku dhashay calayhi salaatu wassalaam waa buqcadii Kacbadu ku taalay waa buqcadii Quraanka Kariimkeenu ku soo degay ummadana Ilaahay Quraan buu siiyay waxay noqotay ummadaha ugu khayr badan bay noqotay habeenkii quraanku soo degayna waxa la yiri inna anzalnahu fi laylatin mubaraka inna anzalnahu fi laylatil qadr laylatul qadr khayrun min alf shahr diintaas dhulkii qiimo u yeeshay maalmihii qiimo u yeeshay bishii qiimaha u yeeshay nabigeena Muhammad qadarka u yeeshay
jibriil makaanadiisa kor u qaaday haddaan diinta innaguna kor u qaadno dhaqaalaheenna caqligeenna cimrigeenna aan ku bixinno intee leegba diintaas kor inoo qaadayna kale walaalayaal yaanan cimrigeenna adduunyo ku wada bixin adduunyadu cali baa lagu yidhi sif lana addunya yaa amiira almu'miniin adduunyada bal noo sifee markaa buu yidhi oo noo tusaale ma asifuhaa maxaan adduunyada iniigu sheegaa buu yidhi u fikiray awaluhaa canaa awalkeeguna waa tacab waa daal wa aakhiruhaa fanaa aakhirkeeguna waa dhammaad xalaaluhaa xisaab xalaalta kugu soo gashana waa lagaa xisaabi wa xaraamuhaa ciqaab teeda xaaraan kugu soo gashana waa ciqaabba ku sugaysa ninka adduunyada hantiile ku noqdana uu fidnoobay buu yidhi ninka ku dhex faqiiroobana uu murugoodaa buu yidhi ninka hantiilaha mu raaxaysta waa ninka maalqabeenka ka warrama isaga ugu walwal badan oo ugu murug badan oo ugu hurdo yar oo ugu raaxo yar oo ugu naxdin badan dadka maalqabeennada intooda badan waxay ka cawdaan ma taqaanaa dhiikar iyo macaan maxaa keenaya ma taqaanaa waa qalbiga waa wadnaha tambaratiirka qalbiga marna uu dhaadhacaa marna uu kacaa marka la yidhahdo waad macaashsana uu farxaa marka la yidhahdo markabkaaga uu degayna uu dhaadhacaa deedna markaasaa dhiiggiisu marna 50 buu gaadhayaa mar 100 buu gaadhayaa mar 200 garaam buu macaankiisu gaadhayaa waa kaca fadhiis dadka ugu caafimaad badan adduunka waa dadka fuqarada dadka ugu caafimaad badan koronaha waagii dhawata dadka ugu cabsi badnaayay haye labada qole haye laba qolo qolada lacaglayda ee shawladooda gaaska ku jira gaas bay leeyihiin mogta iyo qolada madaxda kuraasada ku fadhida inay dhimaneen isku haysata labada qolo ugu cabsi badnayd maskiinka faqiirka qadadii doondoonaya ma koronu ka baqi hormuu ka baqi ciyaar buu arkay riwaayad la samaynayo iminkaan u fiirsaday Djibouti waxa afka xidhan oo dhaw dadkii lacagta lahaa lacagleydii iyo madaxdii waa laba qolo isku haysataba inay dhimanaynba faqiirka miya waxa dadka maalqabeennada madaxda ilaahay ku salliday cabsiya faqiirka ilaahay waa ka qaada waxaas laakiin isaguna xaq kale ka murugoono shoomeernimo maxaa tiraahdaa bisaarad baa madaxa wareersay isagana taasuu madaxa la xoqanaya xagee tagtaa ciyaalka halkeed geysaa فإن شاء الله هذا إن دينتنا معك شغينا ديار منها إن شاء الله